صدن يعفر سنة شرير أو مدحنما بان سوق قبطي وجوين كانت جوين dalka aan u soo qabtay iyo dadka Soomaaliyeed shaqadayda ama kariyerkayga wuxuu ahaa aasaaskiisii ciidamada ayaan ku biiray kontonkii dhammaadkii kontonkii kuwii kontonkii horaantiisii dabadeedna waxaan ka mid noqday rag intale waxbarasho leyli sarkaaguma loogu qaaday 54 dhammaadkiisii waxaana ka soo laabanay 56 annagoo xudublayaal waxyaalihii igu farxadda badnaa haddii aan wax ka taabto tan igu xusuustayda aanan ka goynin weligeed oo igu horreysay waxaa weeye tababarkaas leyli sarkaalnimada ah markuu noo dhammaado kii imtixaanka waxaan ku soo baxay aniga kaalinta koowaad ayaan ka galay saaxiibadii 14 saraakiil baan ahayn kaalinta koowaad baan galay sidaa aawadeedna nidaamka militarigaas midooban u yaallo waxaa weeye imtixaanadaas ninka koow galo ayaa gurubkaas u noqonaya madax intii aan tababarka ku jiray nin kalaa madax noo ahaa oo raggaas madaxda noo yahay baan ka mid ahaa laakiin markii imtixaanka aynu ku najaxnay kadib madaxnimadii gurubka anaa la wareegay arrintaas waxay ka mid ahayd arrimaha farxadda i geliyey xusuus weynna igu leh noloshaydana wax weyn ka bedel maxaa yeele halkaas ayaan ka bilaabay liidarnimada madax inaan u noqdo rag halkaasaan ka bilaabay way soo socotay taariikhda dabadeed shaqooyin kala duwan baan soo qabtay markii hore dalka markaan ku soo laabanay waxaan ku soo laabanay iyadoo militari uusan jirin annaga markaan ka tagayna militari waan ahayn militari baa jiray markaan ku soo laabanay iyadoo boliis militarigii jirayna boliis loo rogay boliis mooyaane ciidan kale uusan jirin baan dal ku soo laabanay waxay khasab noqotay markaa inaan tababar boliis qaadano muddo 5 bilood ah baan dugsiga booliiska ee xamar ku qaadanay tababar booliisnimo oo shuruucda iyo penal codeka iyo adiga shuruucda dalka lagu maamulo aynu baranayno dabadeed waana la qaybiyey saraakiishanadii aniga waxaan ka mid noqday raggii booliiska wuxuu u qaybsanaa markaa qolooyin la oran jiray mobile police oo intooda badan dadkii ciidamada ka yimid la geynayay iyo territorial police aniga waxaan ka mid noqday rag loo xulay territorial police-ka inay ku biiraan waxaana lii bedelay qaybta xamar markaa banaadir baa la oran jiray banaadir division waxaa madaxu ahaa allah u naxariistee generaal markaas corneel buu tan buu ahaa maxamed siyaad barre halkaas ayaa xiriirkanaga iyo barashadanaga ay ka bilaabatay dabadeed markaa la ii bedelay raggii lagu reebay territorial police-ka aniga iyo cabdullaahi yuusuf baa ka mid ahay oo weliba qaybta xamar lagu reebay cabdullaahi yuusufna waxaa loo dhiibay jowhar tenensa la oran jiray talyaanigii tenensa di merka iyo tenensa di jowhar baa naloo kala dhiibay waa subdivision tenensaha dabadeed ilaa konton iyo 8
bilowgeedii halkaasaan ka shaqeeyey arrimo culus baa isoo maray muddadaas aan xilkaas marka iyo eriyada aan hayay dhacdo kaloo waxaa jirtay waagaas noqotay wax maaragtay xusuus laga sheekeeyo noqotay oo isla eriyadaas aan joogay ka dhacday waxaa nin cilmi la oran jiray oo soomaaliya ayaa wuxuu dilay gaal talyaaniya uu deganaa eriyada beeraaley ahaa sababta keentay dilkaana waxay ahayd gaalka ayaa wiil yar oo adeer uu u yahay ninka dhibaato u geystay garaacay wiilka oo nabarro gaarsiiyey dabadeedna inta cagaf meel ku qoday ku riday ciiddii ku aasay wiilkii oo dhan wardan baa laga soo saaray wiilkii ninkii adeerka wiilka u ahaa markuu arrintii ogaaday gudinkiisu soo qaatay gaalkii oo garaashkiisa ka shaqaynayay ayuu godintii kurka kaga guyey haddana iska baxsan waxay noqotay taylandhaan meel kasta talyaani waa weli jooga weli xorriyaddii lama qaadanin waase soo dhowdahay oo 57 baa maraynaa aakhirkeedi talyaanigii buuq badan bay keliyeen nin baa la dilay talyaaniya xorriyaddii iyadoon la gaarin maxay soomaali samayn doontaa marka xorriyadda la gaarana waana wada bareen doontaa gacan ku dhigihii lama hayo buuq badan baa sameeyey ninkii soo qabanay wax kastoo aanu maqlayba ninkii ninka dilay waa soo qabanay maxkamaddaan hortaagnay waa la xukumay talyaanigii faska samaynayeyna waxaan u muujinay يعني مركز الطياري وحين هنا الموجيات وما فكرة صومالية مبتكرية قدي هذا كما أنت ونسك صومالية وما الديار وما صومالي والديار وما هنا وحاصر تكوان بين النيل نينكي بقي واحد والله ما قرن كر لما صونا ولا كر لكن نينكي بقي واسوا قبضني وانا ديني محكمة ده وأنا أعرف بعض أنا وحيه أنت الشخص وأنا صوتي هدي أن كفره المعاص الناس بعدين كخصوص تقول رأيه ويبليهم سواء غير متبرع أنا وادي يعني متبعين واشقيدي مركا ويبدأ لكن عن صوت طوب كل يبقى لحدا يأفرت دقالك أما جو إثيوبيا مدح مري وحي بعدك عليه وأن سوتشوي ارتبطوا يعني كان دقال قلي وأن شوي ليسو بدل دقالك وصعدو ويسوع جيرانك dabadeedna qaybtaas baan ka qayb qaatay difaaceedii waxayna ka mid ahaayeen meelaha aan ka muujiyey ma garanaysaa waxqabad balcaad khayr caadiya iyo bilad sharafba waan ku qaatay dagaalkaas guraanadkiisii halkaas aad joogay aan ka socdo dabadeed 65 dhammaadkiisii waxaan tababar baan waxaan u aaday dalkii la oran jiray midowga sovieti waxaan ku soo qaatay tababar sare oo militariya جنرال محمد علي السمتر